Assalaamu calaykum. Maanta waxaan akhrinaynaa buuggii Cinderella. Okay. Beri hore waxaa jiri jiray oday duq ah iyo gabar yar u dhalay. Odaygii gabadhiisa aad iyo aad ayuu u jeclaa. Gabadhaas waxay ahayd gabar fariid ah oo dadkoo dhan ay wada jeclaayeen, oo qalbi furan, oo naxariis badan. Odaygii markay xaaskiisa dhimatay ayuu naag kala aroosay. Laakiin naagta kale u aroosay waxay noqotay naag xaasidad ah oo camal xun oo qalbi adag oo aad iyo aad u necbayd gabadhii yarayda odayga dhalay. Naagtu waxay hore u dhashay 2 gabdhood oo iyadana sidaasoo kale sida hooyadoodoo kale yaa xaasidiin u ah oo haddana necab gabadhii yarayd. yaa naagta eedada ah oo odayga soo aroosay way ku shaqaysan jirtay gabadha yarta ah. yaa waxay oran jirtay guriga hagaaji, dhulka tirtir, alaabta dhaq, dabka shid, guriga hawshiisoo dhan ayaday ku khasbi jirtay. Gabdhaheedana waxba uma diri jirin. Gabadha yareed xitaa sariiray ku seexato lama siinin oo sariirteediyaa laga xoogay. Dhulka jikadaa la yiri seexo. Markaasi waxay iska ag seexan jirtay dabka si u kulaalato habeenkii markuu qabowgu soo dhaco. Subaxii markay soo kacdo ayadoo wada dambas miiranay soo kici jirto, jirkeedoo dhan dambasaa u saaran yahay dabkii ag seexatay xalan hurdi meeshaas. Mar allaale markay arkaan labadii gabdhood xaasidiinta ahaa, tii yaraydoo jirkeedoo dhan dambasaa uga buuxay waxay u bixiyeen dambasley ama Cinderella. Maalin maalmaha ka mid ah boqorka dadka magaalada ayaa wuxuu isugu yeeray dadkii magaalada oo dhan isugu yeeray wuxuu yiri xaflada adin dhigaya gurigayga in la imaado waay. Dadkii magaalada dhan waa wada farxeen. Marka boqorku wuxuu yiri xafladaas waxaa loogu talagalay in wiilkayga uu gabadhu ka jeclaado magaalada. Yaa markay gabdhaha dhan isugu imaadaan xafladda gabadhu ka jeclaado inuu ka doorto oo gabadhaas loo aroosiyo. Markaasaa gabdhihii magaalada oo dhan aad u farxeen. yaa xitaa labadii gabdhood oo xaasidiinta ahaa oo guriga Cinderella joogay waxay dhaheen waa aadaynaa annaguna dooranaya quruxdeena day. Laakiin ayaga gabdho qurux badan ma ahayn, gabdho farfar xaasidiinay ahaayeen. Marka maalinkii xafladda markii la soo gaaray Cinderella maalinkaasoo dhan ayay ku mashquulsanayd. Dharkooda u dhaq, ayaga diyaari, timaha u shanlee, dharka feeree, wax gabdhii markay maryihii quruxda badnaa ay hooyada usoo gaday markay gashteen oo isku diyaariyeen xafladdii, xitaa habartii isku diyaarisay oo ay sii bixi lahaayeen oo hawshii Cinderella markay hawsheeda dhan iska dhamaysay ayay waxay ku tiri midin raaci karaa xafladda midin raaci karaa. Markaasaa islaanta eedada ahayd oo xaasidada intay dhar baaxa ku dhufatay Cinderella waxay tiri naya may nima raacaysid, guriga hagaaji, alaabta dhaq, waxba sii diyaari, markaan soo noqono shaah heer sare ah asagoo diyaar noo yahay waanaan ku soo noqonaa, guriga joog nima raacaysid. Cinderella aad iyo aad ayay uga xumaatay. way iska oysa kaligeed iyadoo ah iska oysa si isaga oynaysay waxay maqashay cod macaan ee gadaasheeda ka maqashay. Cinderella waa soo jeesatay way fiirisay. Markaasay waxay aragtay naag qurux badan oo maro buluug ah qabta oo gadaasheeda taagan. Markaasay naagtii waxay ku tiri Cinderella ha ooyin macaanto, waxaan ahay hooyo fiican oo waxaan rabaa inaan ku caawiyo. Soo ma rabtid inaad xafladda aadid? Cinderella way fiirisay naagtii. Markaasay tiri ha waan rabaa inaan aado laakiin dhar fiican ma haysto. Cambuurkan go-an keliyaan dhar dhan ka leeyahay. Boqorka gurigiisana wuu fog yahay. Gaarina ma haysto. See ku taga aniga? Naagtii way qosashay markaasay tiri waxba ha ka walwalin. Anaa si fiican kuugu diyaarinaya xafladda. Orodoo baxoo beertaas guriga hortiisa ku taala bocorka ugu weyn ii soo qaad. Cinderella naagtii fiiris ayadoo yaabana iska baxday beertii tagtay waxay soo qaaday bocorkii ugu weynaa ee meesha ku aragtay soo goysay u keentay. Hooyadii fiicnayd waa naag taqaana waxa loo yaqaano magic ama indhasarcaadka. Qori yaray haysatay kasoo baxsatay meel jeeb ah. Qorigii waxay ku taabatay bocorkii. Isla markiiba bocorkii wuxuu isku bedelay gaari yar oo cad oo qurux badan oo loogu talagalay in fardaha dabada looga xiro. Haddana naagtii way sii jeesatay.
ya qorigii yaraaya haddana waxay ku taabatay laba mulac oo dhulka marmarayo cawska hoostiisa ku jiray. Labadii mulac oo yaryaraa waxay isla markiiba isku beddeleen laba fardood oo quruxdooda laga yaabo oo waaweyn oo kaal iska arag. haddana isla naagtii maxay ahayd hooyadii fiicnayd dhulkay sii fiirfiirisay markaasi waxay heshay 6 jiir oo meel marmaraya. markaasi qorigeeda yaraa ku taabatay 6dii jiir hal mar waxay isku beddeleen 6 nin oo loogu talagalay inay fardaha wadaan. haddana way soo jeesatay oo waxay ku soo jeesatay Cinderella. markaasi qorigii yaraa waxay ku taabatay cambuurkii foosha xumaa ee Cinderella qabtay. isla markiiba cambuurka wuxuu isku beddelay cambuur qurux badan oo laga yaabo oo cusub oo dhaldhalaalaya isla markiiba isku beddelay. markaasaa timihii Cinderella hal mar ay u shalnaysmeen oy qurux noqdeen ayadii oo dhan kaale iska arag noqotay ya. markaasay hooyadii fiicnayd Cinderella waxay ku tiri waa ku kaas quruxdaada balday waxaad u eg tahay boqorad waa inaad u dhaqantaa sida boqoradda ya. caawa bax xafladda aad soo baashaal laakiin ya xasuuso xafladda waa inaad kasoo noqotaa markay saacaddu gaarto 12 habeenimo ya. yaysan hal daqiiqo kula dhaafin. markay saacaddu gaarto 12 wax walba sidoodii kusoo noqonayaan. cambuurkaad qabto fardaha nimanka wax walba sidooda hore kusoo noqonayaan. jiir iyo mulac iyo wax walba sidooda kusoo noqonayaan. waa inaad kasoo noqotaa meesha 12 intaan la gaarin. Cinderella way ka ballan qaaday inay soo noqonayso 12 meesha marka lagu gaaro ya. markay Cinderella baxdo xafladii aaday. mar allaale markay xafladii soo dhex gashay ayadoo cambuurka quruxda badnaa qabta ya. dadkii oo dhan waxay ka yaabeen quruxdeeda oo qof walba wuxuu markaas sameynaya wuu joojiyey. boqorka wiilkiisa even xataa boqorka wiilkiisa uu u yimid Cinderella oo wuu salaamay waa ka dhaqaaqi waay ya. dadkii meesha jooga way yaabeen war gabadhan yaa waay weligeed maynaan arag ya. gabadha quruxda badan xagee ka timid markay garan waayeen meesha ka imaatay qaarkood waxay dhaheen war mindhaa waa gabar magaalo kale ka timid oo mindhaa boqortooyo kale ka timid ya. midda gabadhan saa u quruxda badan magaaladeena kumaba noole ya. Cinderella ayadoo meesha iska baashaalayso oo iska cayaarayso oo baadhigii iyo xafladii isaga dhex jirta oo boqorka wiilkiisa kala sheekaysanaysa ee waxay soo xasuusatay hooyadii fiicnayd ya hadalkay ku tiri say saacaday fiirisay mise waa 12kii daqiiqadaa ka dhiman ya. isku naxday isla markii way kasoo carartay xafladda iyadoo boqorka wiilkiisa uu kasoo daba qaylinayo uu ka daba ordaayo magacaaga kaliya ii sheeg hayga tegin adoo magacaaga ii sheegin. maysan dhag jalaq uma siin way kasoo carartay abeenada albaabka saa u furtay ya. way banaanka usoo baxday wax walba saacaddiyaa waxay noqotay 12kii wax walba sidooda kusoo noqdeen ya. markaasaa wiilka boqorka markuu kasoo daba baxay oo isagana banaanka saa usoo baxay oo labada dhinac fiiriyay gabadha quruxda badnayd oo uu caawa dhan la sheekaysanaya banaanka waba taagnaba ya. wuu fiiri meelay ka baxdu garan waaye. keliya wuxuu arkay gabar iska maskiin ahoo dhar dulfa iska qabto shaqaale ah oo jaranjarada kasii deganaysa ya. aad buu uga xumaaday ya. wuxuu ka baqay inuusan weligiis gabadhaas mar dambe uusan ilsaari doonin ya. markaasuu aabihiis u sheegay. markaasuu boqorku wuxuu yiri anaa aqaanaysa gabadhaas loo soo celinayo ya. xaflad kalaan sameynaynaa dadkoo dhan aan isugu yeeraynaa way imaanaysa ayada markaas ya. markay imaato maxay hayto markaasaad weydiisan kartaa gabadhaas inay ku aroosto waaya aab. xafladii yaa la baafiyey dadkii oo dhan haddana waa farxeen meeshaa lagu noqday soo maaha. Cinderella ayadana gabdhihii diyaarisay hooyadoo diyaarisay way baxeen keligeeda meesha uga tageen naa baxna ma raacay sida ku dhaheen. mar allaale markay guriga ka baxeen hooyadii fiicneeda u imaatay oo haddana cambuur kale siisay cambuur cusub oo qurux badan oo cad ya. iyo kabahoodoo ah maxaa ahaa iyo kabo oo ah dheeman ka samaysan oo dhaldhalaha ayaga dhan oo kaal iska araga aa loo geliyay. haddana waxay u samaysay baabuurkii yaraa iyo fardihii iyo meeshii ka baxday maxaa la dhahaa Cinderella ayadoo og in 12 meesha marka lagu gaaro wax walba ay dhamaanayaan. markay xafladii soo gashay haddana boqorka wiilkiisa waaba sugayay. mar allaale markii eridda kasoo gashay aad u farxay uu ku orday bes way sheekaysteen cabaar. markaasaa haddana ayadoo meesha iska joogto iska baashaalaysa haddana waxay aragtay saacaddii oo 12 oo sii dhowdahay
meesheedana kasoo carartay. wiilka boqorka markaan diyaar u ahaa mar allaaliya markii albaabka saa uga soo markii damacda inay soo cararto uu kasoo daba cararay. weer igama tegaysid laakiin way ka orod badisay. jaranjarada markay kasoo deganaysaa kabtii kamid labadii kabood oo dhalada ah kamid ah aa mid ka fakatay. dan umaysan gelin way wiilka boqorka wuu yaabay gabadhaa maxay la cararaysaa laakiin macno ma laha kabteeda u haystaa. aabihiis ula noqday wuxuu yidhi aabe gabadhii quruxda badneed way soo noqotay haddana way carartay laakiin kabtaanay ka tagtay. markaasuu boqorku wuxuu yidhi macno ma laha kabtaanaan qaadaynaa magaalada inaan la wareegaynaa gabadhii kabtaan ee la ekaato cagteeda oo kabtii kalena keenta gabadhii quruxda badneed adiga jeclaatay. waayahay boqorkii wiilka boqorkiisa iyo askartiya soo baxday guri kasta waa galeen gabar kasta kabtiyaa la dhaha isku fiiri wax deeqa waa la waayay marka ugu dambeysa galabka markii la gaaray oo ayba maalinka dhammaan rabto waxay soo gaareen guriga Cinderella. labadii gabdhood ee xaasidiinta ahaa ayaa habarta soo bixisay oo tiri waa kuwaana gabdhahaan ku fiiriya kabta. labada gabdhood kabtaa lagu fiiriyay waa u geli weyd cagahooda waa weyn ya. markaasaa gadaal waxay ka maqleen cod yar oo dhahaya anigana igu fiiriya kabta. gadaal la fiiriyay mise waa Cinderella maskiin oo halkaa fadhido oo halkaas taagan oo dharkeedii go-go-naayo maskiinta ahaa qabta. markaasaa hooyadii islaantii eedadeed waxay tiri naa baxnaayaa kabaa laguma gelinaayo maadaa waa tiri xafladda. markaasaa boqorkii wuxuu yidhi maya gabar kastoo magaalada degan waa in kabta lagu fiiriyaa kaala soo fadhiis meesha. Cinderella meeshii fadhiisatay kabtiyaa lagu fiiriyay mise waaba kabti waa u deeqday lugteeda dhag ya waaba deeqdayba. haddana jeebkay gacanta gelis waxay soo bixisay kabtaas kabteedii kale labadii kabood ay gashatay. markaasaa wiilka boqorka aad u farxay wuxuu yidhi waaw gabadhan gabadhaydii waa gabadhii labada kabood ay haysataa waa gabadhii maxaa la dhahaa xafladda aan ku arkay aab waa gabadhii aan jeclaa. okay meesha la isku aroosiyey Cinderella iyo wiilka boqorka meesha isku arooseen. markaasaa labadii gabdhood iyo hooyadood aad u yaabeen waxay dhaheen wayba ka yaabeen gabadhii quruxda badneed oo xafladda timid oo dadka dhan la yaabanaa Cinderella ahayd ya. markaas Cinderella gurigoodii kasoo tagtay oo dadkii xaasidiinta ku ahaa oo dhibi jiray gurigoodii kasoo tagtay waxay ku noolaatay waxay markaas kadib ku noolayd guriga boqorka ya. sanado kadibna wiilka boqorka aa boqor noqday ayadana waxay noqotay boqoradii magaalada. intaasi ku dhamaatay sheekada.